kulanto caan wanaagsan dawadaal ku soo dhawaada muuqaalkeena qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya xogo iyo sidoo kale warbixino dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Gudda oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose duqeymo culus oo diyaaradaha dagaalka dawladda waddanka Kenya ay halkaas ay ka fuliyeen khasaaraha iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay duqeymahaas iyo dagaaladii maanta ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ayaa muuqaalkan aad ku daawan doontaan qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya xubnaha mucaaradka qaarkood waxa ay galabtay gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya shirweyne ayayna sidoo kale halkaas ay ku qabsan doonaan waxaana ay ka hadli doonaan warqadii dhawaan ka soo baxday xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay markaasi ay ku dalbanaysay in kulan uu dhici doono 1 bisha February ee 2026 haddaba mucaaradka qorshoodu muxuu yahay sidoo kale xogo dheeraad iyo sidoo kale faahfaahin arrintaasi la xiriirta ayaad muuqaalkan aad ku daawan doontaan qodobada kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya ciidamada maamul goboleedka Puntland waxa ay soo bandhigeen xubno badan oo ka tirsan kooxda Daesh kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada maamul goboleedka Puntland haddaba dalalkee ayay ka soo kala jeedaan iyana sidoo kale xogo dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu maanta boggiisa baraha bulshada uu markaasi uu ku baahiyay sawirro iyo sidoo kale qoraal uu markaasi uu ku salaamayay shacabka Somaliland haddaba Cirro oo maalmihii ugu dambeeyay lagu jahwareersanaa halka uu ku sugnaa ugu dambeyntii waa uu soo hadlay haddaba xilligan inta ayuu ku sugan madaxweyne Cirro iyana sidoo kale xog faahfaahsan oo arrintaasi la xiriirta ayaad muuqaalkan aad ku daawan doontaan marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 22 bisha koowaad ee Janaayo ee 2026 haddii aynu ku bilowno dagaalo culus ayaa maanta waxa ay ka dhaceen deegaanka Gudda oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose dagaalkan ayaana sidoo kale waxa u dhaxeeyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo sidoo kale maleeshiyaad tiro badan ayayna kooxda Al-Shabaab waxay ku weerareen jasiiradda Gudda halkaas oo markaasi ah goob istiraatiiji ah sidoo kale muhiim ah wararka qaarkood sidoo kale waxay markaasi tilmaamayaan in kooxda markii hore ay u suura gashay in gacan ku haynta deegaankaasi ay la wareegaan laakiin ugu dambeyntii duqeymo culus ayaa waxaa fuliyay diyaaradaha dagaalka ee markaasi dawladda waddanka Kenya goobtan ayaana sidoo kale waxay ku taallaa xuduudda Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya ugu dambeyntiina kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa laga saaray deegaankaasi iyadoona sidoo kale gacan ku haynta ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa maamul goboleedka Jubbaland khasaare lixaad leh ayaana sidoo kale waxaa la gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee markaasi soo weeraray jasiiradda Gudda oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ciidamada daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland ayaana markii hore waxa ay jilbaha u aasteen xubnahan ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana sidoo kale dagaalkan oo daba dheeraaday iyo kooxda uu gurmadyo kala duwan heshay ugu dambeyntii u soo gashay inay la wareegto gacan ku haynta deegaanka laakiin mar kale ayay ciidamada dib u gurasho sameeyeen waxaana sidoo kale halkaas duqeymo culus ka fuliyay ciidamada dawladda waddanka Kenya iyadoona sidoo kale khasaare lixaad leh oo xoogan markaasi la gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ugu dambeyntii waxaa haatan deegaankaasi gacanta ku hayo ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyadoona sidoo kale gabi ahaanba markaasi meesha laga saaray xubnihii ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab duqeymahan ayaana sidoo kale wararka qaarkood aynu helayno sidoo kale waxay markaasi ay tilmaamayaan in kooxda markaasi looga dilay dagaalyahano badan sidoo kalena khasaare xoogan oo lixaad leh ay ciidamada markaasi ay gaarsiiyeen iyo sidoo kale duqeymihii markaasi lala bartilmaameedsaday war-saxaafadeed ka soo baxay dawlad goboleedka Jubbaland ayaana sidoo kale waxaa lagu sheegay in dagaalyahano badan kooxda markaasi looga dilay deegaanka haatanna iyaga ay ku sugan yihiin sidoo kalena waxa ay shaaciyeen inay soo bandhigi doonaan meydadka xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale hubkii ay markaasi ka furteen sida markaasi ay shaacisay dawlad goboleedka Jubbaland dagaalka maanta ka dhacay Gudda waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa oo waayadan ka dhacay deegaankaasi iyadoona sidoo kale khasaaraha markaasi la gaarsiiyay xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu ahaa mid aad u culus deegaanka xaaladiisu waa ay degan tahay waxaana ay sidoo kale jasiiradda Gudda ee curafka ay ku haysaa magaalo xeebeedka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo dhawaan ay Jubbaland ay tababar ay ugu soo xirtay ciidamo kuwaas oo markaasi la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab ayaana sidoo kale culeys weyn waxa uu ka haystaa dawlad goboleedyada koonfur galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle oo haatan markaasi laba gobol oo deegaanadaasi ka mid ah ay ka soconayaan dagaalo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab waa Shabeellada Hoose oo ka tirsan koonfur
galbeed iyo shabeellada dhexe oo iyana markaasi ka tirsan hirshabeelle labadaasi gobol ayaana sidoo kale haatan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo kala duwan si uusan culeys kale ugu soo fuulin dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay markaasi isku dayayaan in aanan markaasi la weerarin waxaanay sidoo kale ay bilaabeen in ay iyaga markaasi ay wax weeraraan waxyaabaha kale ee ka soo kordha xaaladda markaasi jasiiradda Gudda oo ay haatan ay ku sugan yihiin ciidanka maamul goboleedka Jubbaland sidoo kalena markaasi dagaal adag maanta ay ka dhaceen halkan ayaan idin wadaagi doonaa markana xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa galabta waxa ay gaareen magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta waxay ka degeen magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya xubnahan mucaaradka ayaana sidoo kale kulan waxa ay maalinimada berrito ay ku yeelan doonaan magaaladaasi waxaana sidoo kale horey halkaasi uga soo sugnaa ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka sida Cabdi Faarax Shirdoon Saacid xasan cali kheyre maxamed xuseen rooble iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dhammaantood ka wada tirsan golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xubno kale oo ka mid ah mucaaradka ayaana sidoo kale kulankan ka maqan laakiin haatan magaalada Nairobi intaas ayaa ku sugan waxaana sidoo kale berrito ay markaasi ay ku yeelan doonaan kulan ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee waddanka xubnaha kulankan markaasi yeelan doono ayaana sidoo kale waxa ay markaasi ay jawaab ay ka bixin doonaan warqadii iyo casuumaadii dhawaan ka soo baxday dowladda federaalka Soomaaliya taas oo markaasi lagu casuumay xubnaha mucaaradka gogol wada tasho oo dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena qaban qaabadeeda markaasi loo wakiishay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin waxaa sidoo kale warar soo baxayo ay tilmaamayaan in xubnaha mucaaradka aysan ku qancin go'aanka markaasi hore ugu soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku saabsanaa amaba sidoo kale markaasi la xiriiray casuumadan waxay sidoo kale ay doonayeen xubnaha mucaaradka in laba qodob la cadeeyo qodobka koowaad ayaana sidoo kale waxa uu ahaa wada hadallada halka uu ka dhacayo ugu horeyn in markaasi la cadeeyo iyo ajandaha markaasi kulankan looga hadlayo qodobka labaad ayaana sidoo kale waxa uu ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay markaasi ay ka laabato wax ka bedelkii ay ku sameysay dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxay sidoo kale ay markaasi xubnaha mucaaradku ay shaaciyeen in aanan wili la cadeynin nooca doorasho ee dalku uu aadi doono taasoo iyadana markaasi ka mid ah waxyaabaha oo inta badan khilaafka uu haatan uu markaasi uu ka taagan yahay 1 February lama oga in ay markaasi xubnaha mucaaradka ay ka qayb gali doonaan casuumaadda markaasi uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin arinta kale oo taagan ayaa sidoo kale waxay tahay Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ma tagi doonaan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maadaama sida aynu ognahay horey markaasi maxkamadda gobolka Banaadir ay waaran soo qabasho ay ugu jartay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa sidoo kale aanan markaasi loogan Saciid Dani oo isagana khilaaf adag uu kala dhaxeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khilaafkaasi oo 3 sano ay ugu dambeeyay soo jiitamay iyagoona sidoo kale kulankii ugu dambeeyay Saciid Dani uu ka qayb galay uu dhacay sanadkii 2022 wixii xilligaas ka dambeeyayna Saciid Dani wax golan ah kama uusan qayb galin taasoo markaasi keentay khilaafka markaasi cirka isku sii shareeray ee u dhaxeeyay labada dhinac waxay sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis ay ku saaraysay dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland in ay si toos ah xiriirka ugu jiraan dowladda Sultanka Imaaraadka Carabta maadaama dowladda Soomaaliya ay markaasi xiriirka ay u jartay Imaaraadka ayaana sidoo kale dhawaan waxa markaasi dalka ka ciiriyay dowladda Soomaaliya laakiin waxa arintaas ka soo horjeesay dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland iyadoona sidoo kale labadaasi dowlad goboleed ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhaliilayso in aysan markaasi ka hadlin midnimada iyo madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xadgudubka ay markaasi Israa'iil ay ku sameysay gudaha waddanka Soomaaliya iyo sidoo kale aqoonsiga ay u sameysay maamulka Somaliland arintaas ayaana sidoo kale waxay markaasi ay dhalisay cari xooggan iyo sidoo kale tallaabo ay markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay si aad ah markaasi ay kaga carootay shirka ka dhici doona magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya
ayaana sidoo kale waxa uu yahay mid indhaha lagu wada hayo sidoo kalena jawaab cad markaasi laga sugayo xubnaha mucaaradka ee markaasi halkaasi ku shareeya iyo dowlad goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland oo ay kaga hadlayaan xaaladda siyaasadeed ee wadanka waana sidoo kale shir weyn haddii markaasi ay qaadacaan gogasha uu dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxay sidoo kale ay markaasi noqon doontaa in la sii kala fogaado sidoo kalena siyaasad ahaan ay dhinacyadu ay markaasi ay sii kala dheeraadaan waana arrin markaasi ay noqon karto in ay dowladda federaalka ee Soomaaliya cadaadis xooggan ay ku noqoto waxyaabaha ka soo kordha xubnaha mucaaradka ee gaaray Nairobi iyo kulanka berrito markaasi ka dhici doona magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa markana ciidamada maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay markaasi soo bandhigeen xubno ka tirsan kooxda ISIS kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada maamul goboleedka Puntland ilaa 5 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda Daesh ayayna sidoo kale ay soo bandhigeen ciidamada amniga maamul goboleedka Puntland 5 xubnood ee la soo bandhigayaana sidoo kale waxa ay ahaayeen ajaanib waxaana ay sidoo kale ay ka soo kala jeedaan dalalka Yemen iyo sidoo kale wadanka Ethiopia afar ka mid ayaana sidoo kale waxa la shaaciyay in ay ka soo jeedaan dowladda Ethiopia ama wadanka Ethiopia halka midka kalena uu markaasi uu ka soo jeedo wadanka Yemen dhulka buuraleyda ee gobolka bari ayaana sidoo kale waxa ku sugan ajaanibtii ugu badneed taasoo markaasi lagu tilmaamo in ay tahay mid markaasi xasilooni darrada ka abuurayo qaybo ka mid ah gobolka bari xubnaan isa soo dhiibay lama oga sababta ay markaasi soo dhiibeen laakiin waxa ay hore markaasi Puntland u soo bandhigteen ka badan 50 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada kooxda ISIS oo qaarkood isa soo dhiibay halka kuwa kalena markaasi ay Puntland ay markaasi dagaal ku qabatay muddo sanadii dhowr bilood ah ayaana Puntland waxay dagaal adag ay kula jirtaa dhulka buuraleyda ee gobolka bari kooxda ISIS iyadoo sidoo kale dagaaladaasi ay guulo waaweyn ay ka gaartay waxyaabaha kale ee ka soo kordhana halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa iyo sidoo kale arrinta isa soo dhiibitaanka ee markan haddii aynu eegno Somaliland madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo muddooyinkii ugu dambeeyay la weysanaa halka uu markaasi jaan iyo cirib dhigay ayaa ugu dambeyntii boggiisa waxa uu saacado kor uu ku baahiyay sawirro uu markaasi uu diyaarad helicopter ah uu saaran yahay diyaaradan ayaana sidoo kale dadka markaasi siyaasadda ka faallooda waxay markaasi ay tilmaameen in laga leeyahay dalka Switzerland sidoo kalena waxa ay wadataa calaamada ama sidoo kale astaanta dowladda Switzerland madaxweyne Cirro ayaana sidoo kale waxa markaasi lagu jahwareersanaa halka uu ka sugnaa muddooyinkii ugu dambeeyay taasoo hadalhayn xoogan markaasi dhalisay ugu dambeyntii waxa la ogaaday goobta uu markaasi ku sugan yahay waxaana sidoo kale arintani markaasi laga helay laba cadeyn midda koowaad ayaana sidoo kale waxay markaasi ay tahay in uu wadamada Yurub mid kamid ah uu ku sugan yahay maadaama xilli qaboobaha lagu jiro bariga dhexe cimiladeedu ay markaasi ay kulushahay